ma jeceshahay inuu ilaahay casa wajal ducadaada si cajiib ah oo sida ugu dhaqso badan oo ugu wanaag badan inuu ilaahay kuu ajiibo? ma jeceshahay inaad ka mid noqotid cibaadka oo ilaahay casa wajal maalinta yoomul carafa, maalinta ugu cajiibsan ugu kheyr badan sanadkan oo dhan, inaad ka mid noqotid addoomiintiisu ku faani doono oo kheyrkooda iyo wanaagooda uu u tilmaami doono ama la wadaagi doono malaa'igtiisa? يعني سبحان الله ما يعني مسكح هذا مصورا كرتا إله عز وجل أسقو كوفانا أو ملك جبريل، ملك ميكائيل، حملة العرش، ملائكة حملة العرش إلهي عز وجل أسقو خيرات كذي وناق هذا لو ذا جاي أو كوفانا. سبحان الله ومالين عجيب بدن ومالين أو قف كست ابن آدم كستو إلهي عز وجل أبورتي إني تهي إنو عبادة وناق خيرات إنو لا إماضو. ما تعيشها قصة أو عجيب نين كسابسن maalintaas siduu subxaan allah ducadiisa ilaahay sida ugu dhaqso badan oo ugu ajiiba yoomul carafa inaad dhageysatid. haddaba haddaad jeceshahay intaasoo dhan soo dhawaaw koobkaada shaaha ama caanaha ama biyaha lasoo fariiso, kusoo dhawaaw channelka Coach Maryan, ama koobkaada qahwahana ku dar dadka qahwaha jecel. subxaan allah markasta isweydiisid duco oo markastaad ku duceysan jirta aad weli arkin miraheeda, aad weli arkin ilaahay casa wajal siduu kugu ajiibay, waxaad markasta naftaada ku samarsiisaa ama xasuusisaa aayadda ilaahay casa wajal suuratulbaqara ku sheegayo, waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan. haddii addoomiinteyda ku weydiiyaan u sheeg inaa ku ag joogo, inaa qariib kuu ahay, inaa kuu dhowahay, oo maqlaayo codkaada, oo maqlaayo waxaad rabtid, oo ogahay waxaad rabtid inaan kuu sameeyo, oo waxaad iga duceysanaysid ogahay, waana kuu ajiiba. maa keli inaan ku dhageysanayo kuu dhowahay, waana awoodaa inaan ku siiyo, waana ku siin doonaa insha allah. marka niyadda markasta taas u sheeg, kheyrka u sheeg, neverna inaa noqotid qof oo niyad jaban ama hopeless ah. subxaan allah qisada wiilkan muslimka ah waa qisad oo ku xasuusinaysa yani laa tay-asu min raxmatillah, inaan marna naxariista ilaahay casa wajal aan kan quusanin, especially maalmaha oo kheyraadka badan haddii tahay ramadaanka 10 hameen ugu dambeysa, laylatulqadirka, ama 10 maalmood oo dulxija ugu horeysa oo ilaahay casa wajal ku dhaartay walfajr walayaalin cashir. markastaba ka faa'iideyso waqtiyaasha iyo xiliyaasha oo ilaahay casa wajal ducooyinka aada u ajiibo. subxaan allah wiilkan walaalkeen ah sheekadiisa markuu ka sheekeynayay wuxuu dhahay aniga wadamada carbaha laakiin sacuudiya ma aha, wadan baa ku dhashay oo waalidkaygana anoo yar bay dhinteen, agoonnima ku kore, yani faqiir sabool yani caadi ahan ba ahaan jiray, oo waxaa cuno xitaa waa weyn jiray. markaa soo weynaadayna rafaadkaas iyo faqrigaas markaa kusoo koray, yani shaqo fiicanna waa waayay maadaama waxbana baran, meelna fiican ka shaqaynin. marka dadka oo jidka maraya baa kabaha u tirtiri jiray. shaqo oo ceeb ahna ma jirto, shaqo waxaan ka wadaa shaqo oo haddii xalaal tahay, shaqo kastoo xalaal ah ceeb ma aha. marka subxaan allah kabahaas buu iska tirtiri jiray, dadkan xoogaa lacagahaas yarba iskaga tuurtuuri jireen. marka maalintii dambe asagoo meel oo maxaa la yiraahdaa coffee shop ah ama makhaayad horteeda oo hor fadhiyo oo dadka imaado ama meelaha maraya kabahooda u tirtirayay, wuxuu maqlay yoomul carafa, maybe waqtigaas kusoo aaday yoomul carafa iyo ducada ilaahay casa wajal siduu u aqbalo maalinta carafa. maalintaasi qalbigiisa gashay inuu carafa iyo xajka iyo kacbada inuu soo arko oo duceysto. an subxaan allah wuxuu dhahay ani weligay xitaa yani ma haweysan xitaa inaa u dhowaan doono ama aadi doono xitaa inuu ii surtoobi doonto xitaa inaa aado sacuudiyo ama xajka ka qayb galo. laakiin saasoo tahayna markasta waxaan jeclaan jiray tviyada iyo meelaha tviyada yaalaan, markii kacbada iyo xajkaas la tusaayo ilaahay baa ka duceysan jiray inuu ilaahay ii sahlo. sanawaad badanayna ku qaadatay inuu lacag aruuriyo oo siduu usoo xajiyo. markaa siduu ilaahay yani subxaan allah markaa ilaahay casa wajal ballanka qaadid, yani markaa ilaahay saadiq la noqotid, sadaqa allah, yani markaa ilaahay subxaan allah
aad wax oo go-aan iyo oo kal iyo laab ay kaa tahay go-aanaad gaartay, ilaahay casa wajal man sadaqa allah sadaqahu allah. yacni subxaan allah, ilaahay haddaa si oo kal iyo laab ah aad uga ballan qaadid inaad wax samayn doontid, ilaahay casa wajal asagana kuu fududeynayo waxaasaad jecesha inaad samaysid, maadaama niya khaalisa iyo ikhlaas aad la imaatay camalkaas saalixa inaad jecesha inaad samaysid, ilaahay wuu kuu fududeynaya. sidii baa ku dhacday walaalkeenan muslimka ah. lacagtiya iskuu soo aruurtay, wuu awooday inuu tikitka goosado. xamladaha oo xajka buu raadiyey mid oo rakhiis ah oo easy ah, tii ugu rakhiisneed oo ugu fududeed buu helay. ilaahay wuu u sahlay inuu xajka aado. kacbadii markuu arkay wuu ooyey farxad, yacni wuu rumaysan waayey inuu ilaahay casa wajal u fududeeyey inuu kacbada iyo xajkaas inuu aado. markaas waxaa imaatay maalintii carafa oo buurta carafa la aadi jiray. subxaan allah, wuxuu dhahay ani waxaan doortay meel badanaa dadka buurta aad bay u koraayeen, dadkoo dhan meeshoo dhan waa laga buuxay, meel oo xoogaa yar yacni dhagaxuun badan taalo oo laakiin oo geys ah, xoogaa yar corner ah, baa inta iska fariista min subaxdii qoraxda hadde subxaan allah kuleelkeeda iyo meeshoo dhan sidii tahay. laakiin ani taas maskaxdeeda kuma jirin buu dhahay. waxaa moor maskaxdeeda ku jirtay sidaa ilaahay casa wajal maalintaas uga faa'iideysan lahaa, u duceysan lahaa, oo ilaahay intaa awoodo u baryi lahaa. marka waxyaalaha ku duceysanaya waxaa ka mid ahayd ilaahay casa wajal inuu risqi xalaal waasici siiyo. guri ma haysanin, nolol ma haysanin, family malihi, zawjad malihi, yacni waxaasoo dhan inuu ilaahay isiiyo oo yacni nolol oo muxtaram ah oo tayibad ah, yacni oo maxaa la yirahdaa si xalaal ah inuu ilaahay casa wajal risqi fiican ii siiyo iyo zawaaj wanaagsan inuu isiiyo baan ku duceysanaya buu dhahay. subxaan allah, waana oynaya si waxa u duceysanaya kal iyo laab oo qalbigayga yacni ducada kasoo go-eysa ilaahay casa wajal u baryaayay oo u duceysanaya anoo oynaya. marka subxaan allah, meel agtiisa ah waxaa asagana istaagnaa oday duqoobay oo wilchair lagu waday. marka qofkii wilchairkii ku keenay meesha intuu saas u saaray dhagaxuun buu ka tagay, waa la kala lumay. marka subxaan allah, odaygii meeshina asagana wuu duceysanayaa. marka ninkii wiilkii saa u duceysanaya buu saas u fiiriyaa. kabacdi wuxuu dhahay maxaa kaa oysiinaya saan, oo maxaa ku keena halkan, waxa adig ku keena kulligeenana keena, xujaajtana keena baa i keenay buu dhahay. inaa ilaahay casa wajal waxaan jeclahay inaan ka duceysto oo yani waxyaalo badan baa rabaa. daas waa u oynayo inuu ilaahay casa wajal ii rumeeyo ducooyinkayga sida ugu dhaqso badanna ii ajiibo. marka adigana maxaa ku keen, anigaba tan adig ku keentay baa i keentay oo ah inaad duceystay ilaahay casa wajal oo si kal iyo laab anigana u baryaaya. okay, wuxuu dhahay okay. marka odaygii yani wadaadkii oo wilchairka oo ku fadhiyay, marka wuxuu dhahay markii maqribkii noqotay, wuxuu dhahay yaa la socotaa, wuxuu dhahay meel xaggaas aada u fog, wuxuu dhahay haddaa rabtid yani teendho iyo cunto iyo meel oo adig karavaan camal ahoo oo nice ah baa aan joogaa, haddaa rabtid kaale ii raac xaggaas. marka subxaan allah, wuu soo kaxeeyey wadaadkaas oo wilchair ku socdo, dadkiisii buu ka lumay. marka wiilkan baa soo kaxeeyey, dadkiisii buu la raadiyey meeshii oo sheegayo meel teendho oo fiican oo isku habaysan oo nice ah buu joogay. teendhadii buu geeyey. markaas markuu meeshiisii ku hubsaday oo wax cunto yar la cunay, wuxuu dhahay bas aniga iska baxaya, meesheedii baa u noqonaya. marka wuxuu dhahay bal sukurta adiga kaala barto qisadaada igaa sheekay. wuxuu dhahay ani wadankaas baan ka imaaday oo carabta ah, weligeyna ma fileynin inaa imaado, si mucjisaan ku imaaday anoo wax yar iska aruursanaya. haddana ilaahay waxaan ka baryayaa inuu risqi xalaal waasici siiyo iyo nolol wanaagsan. wuxuu dhahay maasha allah, sida u oyneysay oo khushuucga u oyneysay oo ilaahay u barinaysay, wallaahi yani aad ba uga helay. yani nin dhalinyaro baa tahay oo laakiin saas ilaahay u caabudaya oo saas ilaahay u baryaya. marka yani laa uzakiika fillah, yani laakiin waxaan kaa filanayaa insha allah inaa qof kheyr badan tahay. waxaana jeclaan lahaa inaad aniga waxaan ahayd kambani baa haystaa, reer sacuudiyaan ka mid ahay. marka waxaan jeclaan lahaa qof aamin ah oo wanaagsan oo ilaahay ka baqanaya
oo diintiisa taqwadiisana ka muuqato sidaada camal inuu ii imaado ila shaqeeyo. wiilka warkuu u sheegay maxaa la yiraahdaa aniga halkan yani xajka viisaan ku imaaday saasi wuxuu dhahay don't worry waxyaalahaas oo ku saabsan iqaamada iyo sharcigaada sida wax loo habeen lahaa waa anaa kuu dabari doono waxaasoo dhan adiga hadda markaa wadankaada u noqotid dadkaadii iyo haddaa xaas leedahay iyo waxaasi usoo sheeg dadkaadii usoo sheeg inaad shaqo halkan ila shaqeyn doonto. wuxuu dhahay ani dhegeyso dad mabilihiba hooyaday aabahay anoo yar bay dhinteen qof qaraabo ahna wadankan joogay ilama joogin iyo xaasna malihi yani qofa u taga u noqda u sheega xaalkayga ama kala jecel joogitaankayga iyo maqitaankayga ma jiro. marka wuxuu dhahay okay haddii saas tahay bas marka arinta sharcigaada ku habeenaya and then insha Allah anaa ila shaqeyn doontaa magaaladan joogaana ila imaan doontaa oo kambanigaas baa igala shaqeynaysaa. بس سبحان الله هوشي وفضوضاتي وأسهل إلهي الشرعي سوى ناكسن إنه شقال أهان أو كبديغاسي أضيغاس إنه أشقين دونه شقدي بو بلابي سبحان الله إلهي عز وجل يعني وحان كيابي يعني حتى قرحذي مالنتا عرفة مدعين سبحان الله أنو إلهي عز وجل أجيبين سبحان الله يعني إسلا مركب أجيب أيضا قرح ذي الدعين بو إلهي عز وجل أجيبه دعاء ذي أو يسخر عباد كيسا مركب دعوين كيس باي ذا وحا كمد أها إلهي عباد كذا يسخر إلهي الضومين تاذا يدد كذا وحكستا أبورت يسخر إنه رزق حلال يسيسد إنه نرول وناكسن الدنيا آخرة إنه يسيسد أو يسخر عباد كذا مركب إلهي عز وجل وأسخر عباد كيسي وضيقاس مسكين كأولومي أو ويلتشير ككفر ليا oo caawinay oo meeshiisii u helay hadhoona asagana abaalmarin buu siiyey oo yani uu ka helayba inuu wiil wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo caawinaad gacan furan inuu yahay yani oo saacidayo oo caawinayo. marka wuxuu dhahay shaqadii baa bilaabay isla markiiba guri fiican baa la siiyey lacag fiican baa la siiyey lacagtii markii ii aruurtay dhowr bilood baabuur fiican baa soo gatay nolosheedii oo dhan subxaan allah si cajiib ah bay isku habeysmatay anoo awalna meelaha seexid xitaa waa la-aan jiray derbiyaashaan seexan jiray. marka subxaan allah yani siduu ilaahay noloshayda yani sida ugu dhaqso badan u bedelay baa cajiib ahayd oo mucjisana igu ahayd. marka ilaahay casa wajal wax kasta in allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay kun fayakun bay ku tahay laakiin waxaa la rabaa qofka oo mu'minka ah inuu iimaankiisa iyo yaqiinkiisa iyo kalsoonidiisa ilaahay casa wajal iyo si kal iyo laab ah albaabka ilaahay casa wajal in loo garaaco oo ilaahay la baryo casa wajal oo ilaahayna waa mujiib waana qariib wuuna kuu dhowyahay wuuna kuu ajiibaya. markay lacagta usii aruurtayna dee wuxuu dhahay khalaas inaaba guursadaa rabaa. hadhowna ninkii oo meesha xukumayay oo wadaadkii oo wheelchair ka fadhiyay baaba la doonay cid oo gabar buu soo helay cideedii meherkii wixii oo dhan arooskii kharashkii oo dhan ba asagaaba xitaa kafaalo qaatay inuu wax kasta u sameeyo. halkaas buu reer ku lahaaday nolol fiican ilaahay risqigiisa iyo wanaagiisa. marka wuxuu dhahay subxaan allah waxaasoo dhanna ilaahay casa wajal within the same year buu ilaahay waxaasoo dhan igu siiyey. marka waxaan xasuusinaya naftayda iyo adinkaba qof kastoo maqlaaya maalinta carafa ka faa'iideyso maalinta carafa ka faa'iideyso oo ilaahay casa wajal si khushuuc ah oo maxaa la yiraahdaa yaqiin ah ilaahay u bari oona ku kalsoonaaw xitaa haddaad arkin waxaad ilaahay ka duceysanaysay ilaahay waa qariib waana mujiib waa casiizun xakiim ilaahay casa wajal. marka adiga waxaad ka duceysanaysa diyaar u tahay waqtiga munaasibka ah oo xikmadiisa ku jirto buu ku siin doonaa waxaad jeceshahay laakiin adiga waxaa laga rabaa inaad ka niyad jabin iyo ducadana inaad ka rajabeelin ama ka daalin oo markastana ilaahay casa wajal baryadiisa iyo ducadiisa inaad haysid dikrigana ilaahay dikriga badan ina maalmaha carafa iyo maalinta carafa iyo maalmaha oo xajka waa maalmaha ugu jecel ilaahay casa wajal in dikrigiisa especially dikriga ama qur'aan ka ahaado ama لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلهي وحان كبرية أنيقا إيا نفتيدا إيو أذين كوردن قف كستب إلهي مراد كيسا أسهلو وحو تشعيليا إلهي أسهلو
wax kasta wuxuu ka filanaya iyo khayr ka badan ilaahay hana siiyo kulligeen. ilaahay waxaan ka barinay cibaadkiisa inuu noo sakhiro. ilaahay allahumma sakhir lana junuud as-samaawaati wal ard. ilaahay adduunka iyo koonko dhan ilaahu noo sakhir oo khayr oo dhan ilaahu nasi adduunyo aakhiro anaka inta jecelnay muslimka oo dhan meel kasta joogaan. wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma'a salaama.